أجوار كماتيكية لأمامكم للملعب من ملاعب هرقيسة ملعب السيتي ستاديوم. كان هو محمد بارود waxa uu daadihinayay ciyaartii finalka ahayd ee dhexmartay kooxaha Caqli Shoob iyo kooxda Baaldahab iyada oo markaasi ahayd maalintii ugu dambeysay ee koobka sagaalka cisho ka soconayay garoonka City Stadium xaafadda Geerashawaadan degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa. koobkan ayaa u dhaxeeyay 8 kooxood oo kamid ah kooxii loo soo xulay ee ka dhisan xaafadda Geerashawaadan ee degmadaasi Gacan Libaax. ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay gool kulaaqayaal ay ku guuleysatay kooxda Caqli Shoob 9-8 uga badisay kooxda Baaldahab balse qaybta hore ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah iyada oo kooxda Caqli Shoob uu goolka u dhaliyay kabtankooda waa Cabdixakiin Sergio iyo kooxda Baaldahab oo uu goolka u dhaliyay Yaxye. qaybta dambe ayaan wax goolala la kala dhashan xilli loo gudbay dhankaas iyo gool kulaagyada iyadoo kooxda Caqli Shoobna sidaa ku qaaday koobkii sagaalka cisho kooxaha 8 uga soconayay garoonka City Stadium. munaasabada xiritaanka waxaa si toos ah uga soo qayb galay gudoomiyaha degmada 26 Juun waa Cumar Dhalac, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Maxamed Cabdilaahi Saciid Khaawi, garsoore Mahdi Jawaase iyo sidoo kale Marwo Khadri Xaaji Cismaan oo kamid ah haweenka xaafadda Geerashawaadan iyo waliba dadweyne aad u tiro badan oo u soo daawasho tagay gunaanadka koobkii sagaalka cisho ah kooxaha 8 uga soconayay garoonka City Stadium degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa. markii ay soo dhamaatay ciyaartu ayaa waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada 26 Juun waa Cumar Dhalac, sidoo kale garsoore Mahdi Jawaase, Marwo Khadri Xaaji Cismaan iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Maxamed Cabdilaahi Saciid Khaawi oo isagu soo xidhay guud ahaan xafladda. aynu wada daawana hadal jeedintii. waxaan guul u rajeynayaa degmada Gacan Libaax oo iyaduna u baahan garoomo badan in loo dhiso oo sida kuwa kubadda cagta kuwa xawaadlo kala waayo dadkan oo dhan waxa u baahay wax mashquuliya kuma filna garoonka xawaadle oo inta badan soo daawashay maadaan marka hambaliyo maan leeysa koobka soo dhamaaday. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Cabdilaahi oo runtii waqtigiisii inoo soo huray iyadoo ay hawl badan ay u taalay aad baan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada 26 Juun Cumar Maxamed Dhalac. labadii kooxood ee halkan finalka isku soo baxayna labada kooxood waxa la wada guuleysateen hambaliyo khaasatan kooxdii ku guuleysatay koobka ee Caqli Shoob. sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa saxaafadda telefishinka badda cas B24 iyo tayo qaran iyo fotografarada iyo dhammaan taageerayaasha ka soo qayb galay aad baad mahadsantihiin. waxaan aad ugu faraxsanahay sida maanta caruurteena faraawlka u yihiin ubaxa u yihiin kubadda u ciyaarayaan markaas waxay noqonaysaa inay haddii nahay waalidiintii dawladdii inaynu maartay aynaguna aynu dhinaceena qabanno oo aynu taageerno maadaama caruurteena maanta ay keenaan jaanis wanaagsan oo ay iyagu ku keeneen fikirkooda inay ciyaaraan halkay caruurtu tahriibi lahaayeen ama ay meelo gali lahaayeen ama mukhaadaraad iyo daroogo iyo waxyaabo kale ay keeni lahaayeen waxa maanta farxad ah inaan maartay aniguna ku faraxsanahay in caruurteena ay sidoo kale sameysay marka waxay tahay oo fariin u diray halkan dawladda inay aad iyo aad caruurtu taageerto maaha inta ciyaarayso oo kaliya inta hareeraha taagan waxay u baahan yihiin garoomadani waa lacag caruurta qaali bay ku yihiin waxa loo baahan yahay garoon caruurtu ay free ku soo gasho garoonka reerka laftarkooda waxaan iyaga ku bogaadinayaa sida wacan ay u sameeyeen laakiin waxaan aad iyo aad uga codsanayaa waan doonayaa inay caruurta yaryar ee soo koraysa kuwa meelaha taagan oo dhan ee maartay aan chance ka helin in badan maartay ciyaaraan ama aan dhaqaale ahaan aanay u saamaxaynin inay ciyaaraan in kuwa la taageero. bismillaahir rahmaanir rahiim. ugu horreyn ilaahay baynu mahadnaqaynaa mar labaadka waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa gudida garoonka iyo kooxihii sida fiican uga soo qayb galay oo ciyaaray dhammaan wareegaas muddadii uu socday aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidii fiicnada qurux badan uga soo qayb galeen. runtii labada kooxood maanta ciyaaraya ee kubadda quruxda badan muujin iyagana aad baan ugu mahad celinayaa wax xanaaqada iyo askoosotoona muujin kooxda guuleysatay waan u hambalyeynaa insha Allah waxaan leenahay mabruuk kooxda kale laga guuleystay waxaan insha Allah mar dambe ayaa guuleysan doontaan insha Allah ka wasaarahan anagu mar walba la shaqeynaa insha Allah waxaan ku tala jirnaa inaan wax u qabanno insha Allah waxay nooga baahdaan insha Allah degmada xaafadda iyo degmada insha Allah aad iyo aad baan ugu tala jirnaa inaan wax qabad fiican insha Allah u sameeyno aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. shantii ugu fiicnayd tartanku intuu socday waxa loo aqoonsaday Amiin Qalami oo ka tirsan kooxda Caqli Shoob. Baaltu amba baasha labaad waxa loo aqoonsaday Axmed Indo oo ka tirsan kooxda Caqli Shoob. baal 3 amba baasha saddexaad oo loo aqoonsaday Maxamed Bidiix oo ka tirsanaa kooxda Baaldahab. dhexdii ugu fiicnayd tartanku waa Cabdishakuur
Ayto oo ka tirsanaa kooxda Xeefo. Weerarkii ugu fiicnaa tartanku inta socday waa Cidaruus oo ka tirsanaa kooxda Deeq Softy. Sagaalkii ugu fiicnaa iyo gool dhaliyihii ugu badnaa tartanku inta uu socday waa Muxyidiin Diino oo ka tirsanaa kooxda Baaldahab. Iyo ugu dambeyntii goolhayihii ugu fiicnaa tartanka oo loo aqoonsaday goolhayaha kooxda Caqli Shoob ee koobka ku guuleysatay waa goolhaye Abshir. Hambalyo kooxda ku guuleysatay koobkii 9 cisho uga soconayay garoonka City Stadium kooxaha 8 ah ee kooxda Caqli Shoob oo koobkaasi ku guuleysatay. Matee qaran wararka malcab magaalada Hargeysa.